waxaa la yidhi waabaa nin reerkiisii degnaa meel cidlo ah. ninkuna wuxuu lahaa naag, 2 wiil iyo 2 gabdhood. gabadhii weyneed way kortay oo gurdoon bay noqotay. nin guursadaa gabadha ma jirin oo reerku kaligood bay meel cidlo ah degnaayeen. ninku afadiisa waxay ku talisay inay u guuraan meel cid kale degan tahay, isaguna kama yeelan taladaas oo ma uu rabin inuu ka guuro rugtooda oo waalidkiis baa ku duugnaa meesha. gabadhii waxay adoogeed weydiisatay inuu u doono nin guursado. maalin walbana 10 goor bay adoogeed ku oran jirtay, aabe goormeed nin ii dooni. adoogii waa dhibsaday codsigaas badan oo gabadhiisa. berigii dambe baa reerka waxaa u yimid niman qorismaris ah. ninkii reerka lahaa baana soo dhaweeyey. qorismarisyada waxaa madax u ahaa mid dhar qurxoon qaba oo af Soomaaliga yaqaan. ninkii reerka lahaa sidii martidii mudneed buu u soo dhaweeyey. qorismarsyadii siday dad bay u ekaayeen, wuxuuna weydiiyey ujeedada booqashadooda. kii madaxda u ahaa dhurwaayada wuxuu odaygii u sheegay inuu doonayo inuu guursado gabadhiisa weyn ee gurdoonka ah. odaygii arrintaas yaab iyo naxdin weyn bay ku riday. sidee buu inantiisii u jeclaa Geeyo Xariiro ugu guuriyaa waraabe? isla markaas odaygii wuxuu soo xasuustay codsigii gabadhiisa, aabe goormeed nin ii dooni. ereygaas oo u adkaysan kari waayey ninkii reerka lahaa. maalintii dambe buu la ballamay qorismarsyadii si uu jawaab ugu siiyo codsigooda. ayagana way iska tageen. kii madaxda u ahaa wuxuu ku rayaaqay sida wacan oo ninka reerka lahay u soo dhaweeyey, wuxuuna ku rajo weynaa in gabar dad ah loo dhisi doono isagoo dugaag ah. ninkii afadiisii buu u sheegay codsigii qorismariska oo beri uu imaan doono in jawaab la siiyo. Geeyo Xariiro oo himbay la suuxday markii ay maqashay arrintii. waalidkeed waxay u sheegeen iyada in qorismarisku af Soomaaliga yaqaan, dadna wuu eg yahay, sidaas aaweed waa inay guursato. gabadhii waxay ilmo qubtaba ugu dambeyntii way ogolaatay taladii waalidkeed. adoogeedna wuxuu ka ballan qaaday inuu ka furi doono qorismariska hadduu ku xumaado. dharaartii dambe baa qorismarisyadii ku soo noqdeen reerkii. odaygii baana soo dhaweeyey oo wuxuu u sheegay in isaga iyo afadiisii isku raaceen inay Duruqsi iyo gabadhiisa Geeyo Xariiro isku dhisaan. waxaa lagu heshiiyey in dabaaldega arooskana la sameeyo isla maalintaas. Duruqsi iyo saaxiibayaalkiis aad bay ugu riyaaqeen qadarintii weyneed ee ninka reerka lahaa siiyey. Duruqsi faankii iyo xaragadii buu iska badiyey reereen awgeed, ileen wuuba ilaaway qaarkiisa dambe ee gaabnaa iyo runtiisii loogu bixiyey naanees. xoolihii yaraa buu bixiyey Duruqsi, kadibna Geeyo baa loo dhisay oo damaashaad yaab leh iyo irgah leh baa loo dhigay. Duruqsi iyo saaxiibadiis waxay diidi kari waayeen soortii dadkii loo keenay. sidaas bayna ku waayeen soortii dhurwaayada ee ahayd hilib ceeriin ah iyo lafo. inuu Duruqsi inanayaal noqdo oo gabadha reerkooda la degnaado baa lagu heshiiyey. saaxiibadiisna qiimadooda bay ku noqdeen. aqal qurxoon oo dogsoon baa loo dhisay arooskii. markii ay aqalkoodii wada galeen cawadaas baa Geeyo sariirtii sida fiican loo goglay ku soo dhaweysay ninkeedii Duruqsi. gogashii ma aha buu yiri,
Geeyo way yaabtay oo ku soo dhaweysay gambartii ma aha buu yidhi. Markaas bay dermo u fidisay oo ku soo dhaweysay. dermadii ma aha buu yidhi. Geeyo way la sii yaabtay dabeecadaha ninkeeda oo markii dambe ku soo dhaweysay gobtol ama abjad turuf ah oo aqalka eradiisa lagu xooray. Haddaan hooyaa buu yidhi Duruqsi oo intuu reereen dul fariistay gobtolkii durufka ahaa. Geeyo gabar garaad badan bay ahayd oo waxay ka tashatay in aynan durba ka caroon ee bal sii barato ninkeedii amuurtiisa. Waxayna istiri maxaa cuno ah oo raali gelin kara dhurwaa. Waxay soo qaaday cad hilib ah oo ceeriin, dhoobo qoyaan, habaas, ciid iyo dambas laisku qasay. Waxaas oo dhan oo soo hordhigtay Duruqsi qosol iyo reereen buu intuu la dhacay oo cunid ku boobay kooshkii loo keenay. Haddaan hooyaa buu yidhi. Geeyo waxay markaas rumaysatay in ninkeedu yahay waraabe banjoog ah oo aanan abuur dad inaba lahayn, afka u yaqaan mooye. Waxay ku tashatay in ay iska erido bahalka. Aqalkii bay ka carartay cawadiiba oo adoogeed iyo habarteed u sheegtay wixii ka dhexdhacay iyada iyo Duruqsi. Ninkii reerka lahaa Duruqsi buu u yeeray oo weydiiyey waxa isaga yaafadiisii isku afgaran waayay. Seediyow, wax jecel ka macaan ma jiraan dunida korkeeda, siiba jecel dhalinyar. Mararka qaarkiisna colaad iyo qoos burbura buu jecelku ku dhammaadaa. Waa anigii kuu dhisay inanteedii berigii dhowaa ee maxaad isku weydeen durba. Bal ii waran buu ku sii daray odagii hadalladiisii. Sodogow, marna lagama yaabo inaan ka tilaabsado xeerkii iyo dhaqankii awoowayaalkay oo u dejiyey tolkii reer waraabe oo qaato dabeecadda dadkiina iyo oontiina oo isku bedelo nolosha iyo dhaqankaygoo qaato abuurta qaraadeed ee dadeed, buu ku jawaabay Duruqsi. Odagii reerka wuxuu ahaa nin waxgarad ah, wuxuuna yidhi xeer kastoo la eego garbaad leedahay. Markaad hadalkaas tiray waxaadse haatan kala doorataa inaad Geeyo madaxeeda siisid ama xeerka iyo dhaqankaaga badashadoo kayga soo raacdid. Markii Duruqsi maqlay hadalkii sodogiisa buu sare u kacay isagoo waraabo run ah oo isla weyni iyo kibir ka buuxa. Wuxuuna yidhi, sodogow, ceeb iyo dhagaxumo ka weyn ma jiraan xeerkii dhaqanka laga tago. Aniguna intaan ku dayan lahaa dhaqanka dadka magaxumo soo jiida lahaa tolka reer waraabo oo dhan, waxaan doortay inaan kuu furo Geeyo iyo qiimaha igu fadhiiday oo dhan. Markuu Duruqsi intaa yidhi buu istaagay oo cagaha wax ka dayay oo duurkiisa galay in laga soo daba ordo oo la soo celceliyo oo madax banaanidiisa iyo heebadiisa waraabe laga qaato weligiisna dadku adoonsadaan buu Duruqsi ka walwalay.